assalaamu calaykum walaalaha qaaliga oo walaalkiin xuseen mar kale isku soo noqdo wanaagsan. Hore waxaan uga soo sheekeynay cashiro badan oo kala duwan oo qaybo kala duwanaan lahaa. Cashirkeennan waxaan ku arki doonaa qaybta lahaanshaha. Qaybta lahaanshaha waa aad bay u fududahay luqadan Turkiga markii laga hadlayo. Sharciyo badanna way leedahay xoogaa yacni isku dhex jirjira marka qofku uu marka hore uusan aqoon u lahayn. Markii qofku uu dhex galana oo dhowr mar uu arkana aad bay u fududahay. Dadka qaar marka koobaad hore ka fahmaan, dadka qaarna marka xoogaa loogu celceliyo ay hore ka fahmaan. Marka dhammaantiin waxaan idin leeyahay ku soo dhawaada cashirkeenii lahaanshaha. Iyeelig egleeri. Egleeri waxa weeye gadaal galayaan. Iyeeligna waxa weeye waa lahaanshihi. Luqadan Turkiga waxay ku shaqeysaa dhammaanteed gadaal galayaan ku shaqeysaa. Haddii ficil ahaan lahayd taynis lahaansho shay walba waxay ku shaqeysaa gadaal galay. Marka intaanan sharciga bilaabin waxaa muhiim ah luqadda Turkiga sharciyadeeda shibna iyo shaqal ay u kala baxaan. Inta badan markii shibno gadaal gala la galayo iyo markii gadaal gala shaqal lagu sameynayo way kala duwan yihiin. Marka waxaan ku bilaabeynaa qaybta koobaad ee silsile xaraf leer ee ah shaqallo. Saa u jeedaba 8 shaqal ayaa ku jirta qaybta koobaad. Marka waxaan fiirinaa erayaasha ay shaqalada u dambeeyaan ayaan waxaan ka dhigaynaa lahaansho. Benim waxa way waxayga marka dhaysa benim. Marka benim markaan leeyahay haddii shayga shaqal u dambeeyo waxayga markaan dhahayo waxa shaqalba hadduu u dambeeyo waxaad ku daraysaa kaliya m ayaad ku kordhinaysaa. Maxaan ku darayaa m ayaan ku darayaa. Marka sidaas waxay ku noqonaysaa benim baabam aabahay. Haye sinin waxaaga markaad dhahaysa aabaha sinin baaba markaad maxaa ku daraysaa shaqalka gadaal waxa uga daraysaa n bis. Markaas waxay noqonaysaa sinin baaban adiga aabaha. Marka aad buu fududaa markay benim waxayga ama sinin waxaada markii la joogo hadii shayga shaqal u dambeeyo waxaad ku daraysaa m iyo n bis kula daraysaa. Waxayga markaad dhahaysa hadii shayga shaqal u dambeeyo m bis isaga daraysaa. Waxaaga markaad dhahaysana hadii shayga shaqal u dambeeyo n bis ku daraysaa. Kuwaas aad bay u fududiyeen. Intaas kaaga filan baa malaynayaa kuwaas inaad sidaas ku fahamtaba. Maxaan ku iri hadii shayga shaqal u dambeeyo waxayga markaad dhahayso marka waxa weeyaan marka saas ku fududahay. Waxayga markaad dhahaysa maxaa ku daraysaa shaqalka m bis ku daraysaa. Baaba waxa u dambeeya a m ayaa ku daraysaa. Waxaaga markaad dhahaysana n bis ku daraysaa. Hadii shaqal u dambeeyo waxayga markaad dhahaysa hadii shaqal u dambeeyo maxaa ku daraysaa n m ayaa ku daraysaa. Waxaaga markaad dhahaysa hadii shaqal u dambeeyo n ayaa ku daraysaa. Haye wixiisa markaad dhahayso ama waxeeda waxaan ognahay waxa weeye waxeeda ama wixiisa. Marka wixiisa markaad dhahaysa ama waxeeda markaad dhahayso waxaad ku daraysaa xarafka a iyo u midkood waxa qaadanaysaa u ayaad qaadanaysaa. Sidaan ayaad leedahay u ay leedahay. Marka saan hadda dhahna waa qalad. Hore waxaan soo sheegnay laba shaqal inaadan isu keeni karin. Marka maxaan sameeynaa labada shaqal waxaan ku kala ilaaleynaa s. Marka saas waxaad ku dhahaysaa baabzi asaga aabihiis ama iyada aabaheed. Baabzi aabihiis ama aabaheed. Marka taas sidaas ku fududahay. Haddii aad rabtona isla socod waa keeni kartaa. Hadda sidaan oo kale hadda tir waxaan ku tusayaa sidaan aad dhigi kartaa. Si waa isku ayuu isla socdaad fahansanta waa ku dari kartaa. Laakiin waxa sharciga waxa way waa uula estana labada shaqal ayaa loo kulaalanayaa. Haye ka soco waxaan rabaa aabaheen inaan iraado. Aabaheen si aan u iraado waxa muhiim ah inaan marka koobaad inaan ku daro xarafka inaan ku soo daro mt inaan ku soo darsado. Maxaan ku soo darayaa mt igu soo dar. Maxaa yeelay aniga marka aabaheen markaan leeyahay anigu waan ku jiraa. Marka haddii aniga aan markaan aabahay markaan dhahay maxaan ku daray m bis aan ku daray. Hadda marka mt igu soo dar marka ka bacdi maxaan sameynayaa waxaad iga dhigtaa jamac isku dar marka oo jamaca. Sidaas ayaa waxa ku dhahday aabahay bisim baaba mis aabaheen. Sidaas ku dhahna. Haye mid kale aabihiina sisin wixiina waa mogtahay ba aabihiina rabtaa inaad dhahdo marka see u dhahay marka aabihiin marka dhahaysa maxaa ku daraysaa n ayaa ku daraysaa. Nt maxay tahay aabaha marka dhahaysa maxaa ku daraysay n ku daray. Hadda aabihiin jamac ka dhig marka nt horta soo dar marka nt ku soo darto ka bacdi jamac ku dar oo isku dar marka baabanis. Saas ay xukunada aabihiin. Aabahooda raba inaad dhaho marka maxaan ku darayaa laari ayaan ku darayaa laari. Aabahoodan ku darayaa laari. Marka maxay noqotaa baabam aabahay baaban aabaha baabazi aabihiis ama aabahiis baabamis aabaheen baabanis aabihiin baabalaari aabahood.
hay midda ku xigtaan fiirinaa marka ane waxa weeye waa hooyo waxaa u dambaysa marka benim markaan leeyahay aneem hooyadii markaan dhahay maxaan ku darayaa m bis igu dar intaas bis waayba haddiiba sheega shaqal u dambeeyo waxaygan aad rabto inaad dhahdid m bis isaga darso ama mee bis ku darso mee ku darso haye haddii rabo marka hooyada haddaan raba inay dhahdana maxaan ku darayaa n bis iyadana ku dar n marka kuwaas aad bilaas u fudiyin haddii sheeka shaqal u dambeeyo markaan dhahaya aabahe markaan leeyahay ebaan ku darsanaa aabaha markaan ku dhahayan adigana n ayaan kugu diraa haddii sheega shaqal u dambeeyo way haddii shibin u dambeeyo wayna soo socotaa haye marka aabaheed markaan leeyahay maxaan leeyahay iidaa sharciya iyadana meeshaan maxaa sharci aan haystaa maxaa sharciya iidaa sharciya marka labadan shaqal marka inaan kala ilaaliyaa laga rabaa marka oo isu ekaan marka saasaan sida ku ilaalinaya marka waxay noqonaysaa unun aneesi hooyadiis ama hooyadeed haye hooyadeen ma yidhaahdo marka hooyadeen marka inay dhahdo maxaa qasaba marka mt keen marka kabacdi maxaan ku darayaa is igu daro marka oo jamac marka waxaa ogaataa labada is way kala duwan yihiin istii hore dhibic ma yahayn bay ahayd maanta tan waxa way dhibic leedahay marka ist ku daraysa dhibic leedahay haye waxaan rabaa hooyadin inay idhaahdo hooyadin marka inay idhaahdo maxaan ka xay laga rabaa n keen marka koobaad n markaan keen kabacdi maxaan ku darayaa is ayaa ku daraysaa marka waxay noqonaysaa siisin anenis hooyadin marka haye onlarin ayaa laga siraa marka onlarin maxaa waaye waxooda marka hooyadooda marka dheh leeri ayaa ku daraysaa marka tii hore maxay ahayd laari ahayd tii hore maxay ahayd baabalaari tana maxaa waaye aneleeri hooyadooda marka aneleeri hooyadood cashirkeenna intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa dhammaantiin waa mahadsantihiin si aad cashirka u dhagaysateen haddaan waqti kaa lumiyey ka raali noqo waxaan kaa codsanayaa inaad cashirka sii shargarayso walaalahada kalena aad la sii wadaagto insha allahu qaybta noogu xigta waxay isla noqon doontaa isla cashirkan ayaan kusoo gudbi doonaa dhammaantiin waa idin mahad celinaya